آب بري ويل كيسا معناها جعيلك إلهي سبحانه وتعالى مركز كبعد أدونك كل يفسد أيضا آخرة يودمنتها إن شاء الله تبارك وتعالى قصدا waxay ka dhacday wadanka Masar aaba ayaa wiilkiisa waxa uu ku tarbiyadeenaya asigoo sagiir oo sibyaan ah oo gaarin fahamka diinka intiisa kale jacaylka Ilaahay buu barayaa yaraantu ku barayaa wuxuuna uga dan leeyahay inuu maskaxdiisa la korto jacaylka Ilaahay uu qabo subhanahu wa ta'ala wiilkan yar ee sagiirka ah aabihi ayaa mar waliba wuxuu wiilkiisa weydiiyaa wiilkaygiyo waa kuma jacaylkaagu bal ilmaha maanta hadii la weydiiyo waa kuma jacaylkaagu maxay ku jawaabi lahayd waa kuma jacaylkaagu markii la weydiiyo wiilkan yar aabuhu wuxuu baray inuu ku jawaabo jacaylkaygu waa Allah subhanahu wa ta'ala mar walibana uu ku celceliyaa si uu qalbigiisa u qabatisiyo waayo ilmuhu markay yihiin wixii lagu soo celceliyo way xafidaan wayna la koraan oo waa tacarabtu tiraada man shabba ala khuluqin shabba alayhi qofka wixii uu ku barbaara ayuu noqdaa Soomaaliduna ay tira waxaad barato waa baaska macnaha waad u dambaysaa waxa aad barato halkaas baad ku bixi doontaa laga la jeedaa wiilkan yar marka waxa la baray markii la weydiiyo waa kuma xabiibkaagu inuu dhoo xabiibi Allah xabiibkayga ama kaan jecelahay waa Ilaahi subhanahu wa ta'ala barigi damba waxa dhacay inuu xanuunsaday aabihi sidaas wiilkiisa u tarbiyeynay waxayna ahaayeen dad dan yar ah oo fuqara oo masaakiin ah markuu aabihi xanuunsaday waxa soo ziyaarinaya dadkii kale oo ehel iyo asxaabaha markaas ay wixii leeyihiin markay noqonayaan Allah yashfiik Allah ku shaafiyo wiilkii yaraa intii baa dhagto uga dhacday markaasuu isweydiiyay war Allah ku shaafiyo iyo Allah la sheegayo miyuu xabiibkaagi ahayn kume kaaxiga adiga Ilaahay cidna kaama xigto ilaa waa xabiibkaagi oo adaa jecel adiguba Ilaahay aabaha u weydii caafimaad oo warqad u qorbu isir ilaa waa cunug yar oo ma garanayeen Ilaahay warqad gaarisi in kale laakiin Ilaahay wax waliba uu ogyahay oo la socda xaalku kama qarsana hadii warqad dunida laga qoray aysan gaari karinin Ilaahay uu daawanaya qulubta iyo uu daawanaya niyada iyo danta laga la jeedo Ilaahayna uu arkaya wax walba dhacay subhanahu wa ta'ala markaas waxa dhacday inuu kii yara u tago hooyadii oo ku yiraahdo hooyo waxaan doonayaa inaan warqad qoro una qoro xabiibkayga oo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka waxaan doonayaa uu yiri warqadan inaad geeso meesha boostada laga diro hooyadii maxay kaga jawaabtay ma garanaysaa may u diidinoo kama celin ayadoo xaaladaas la yaabtay hayid ku tiri qoro warqadaada farqal qaloocan oo far caruureed ah ayuu wuxuu ku qoray xabiibkii Allah aabahayba xanuunsan ii shaafi buu ku qoray markaas warqadii qaaday hooyadii intay wadaba warqadii qaaday oo ku riday boostadii qoladii boostada ka shaqeynaysay yaa warqada waa la akhrinayaa meeshay ku socotee waxay arkeen warqada tan inay tahay warqad ka weyn oo ku socota Ilaahay subhanahu wa ta'ala aysan karin inay gaarsiiyaan arintan way la yaabeen oo way la fajaceen markaas ay dawladda u gudbiyeen qaybta arrimaha diinta quseysay waxay ku dhaheen warqad naga weyn baan aragnaa anaguna ma kari karnee bal arka adinka qaybtii diinta bal waxay shariicadu ka qabto dawladii markay warqadii gaartay intaysan dawladdu go'aan ka qaadan oo san ka fariisan arinta tan yaa lagu daabacay jaraa'idkii soo bixi lahaa subaxii buga koowaad waliba looga daabacay intaas kadib warqadii waxa arkay oo akhristay mid kamid ah dhaqaatiirta ugu waaweyn wadanka ayaa arkay arintan buu la yaabay markaas buu guriga nabarkiisa eega warqada ku qoran xaafadii buu yimid wiilkii yaraa uu la kulmo ku yiri warqada tan ma adiga soo qoray ilaa far ilmeed baa ku qoran buu yiri waxaan u qoray xabiibkayga oo Allah ah dhakhtarku wuxuu ku yiri xabiibkaaga ii soo ka diray xabiibkaaga uu ku shaafinaya aabaha aniguna waan ku daweynayaa ee ina keena cidii oo dhan buu raray oo isbitaalkii dajiyay odaygiina sidii buu ku daaweeyay cajiib dawladii baa ka fariisatay dawladdu markay ka fariisatay kadibna ay doontay inay guriga intay tagto odayga kan isbitaal iyo la raadisa caafimaad maadaama inanka cajiibka uu dhalay oo Ilaahay uu codsanayo wiilkan yar
ayaa waxay u tagtay gurigiiyo wafaaruqa markay weydiisay dariskiina waxaa lagu yiri isbitaalka hebel buu jira oo doctor fulaan baa kaxeeyay bal ummadii ilaahay oo dhan baa u gurmatay limaada canugan yar wuxuu fariintiisa u dirsaday ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay waa kan kaga soo jawaabayo dawladii dhaqaatiirtii iyo dhammaan mujtamacii kale oo dhan baa lacag u soo ururiyo tacaawun iyo gargaar u sameeyay maxay waxa soo darajo ah ku gaaro odagaas ma garanaysaa wax kale tamaahan inankiisa uu waxa wanaagsan baray inankiisa xataa macno weyn fahansaneen diinta iyo islaamka iyo jiritaan ali waxa aan kala garan karin oo mumayis aan ahayn oo aqligiisu uu sadhameen yu haddana jacaylka Allah baray markaasuu ku badbaaday adduunkii oo caafimaad ilaahay ku siiyay iyo maal iyo wixii dhan uu doonayay aakhirana insha Allah hadduu wiilka ka sida ku barbaaro odayga dhimashadiisa kadibna uu noolaado wuxuu noqon doonaa mid u duceeya oo